in shidaal ay waayeen, nolosha caadiga asaasiga ay waayeen, nasiino ay waayeen, bartilmaameed cirka ah iyo mid dhulka ah ay ku hayaan. xanuunkaas gaar dartiisa ay ka qeylisay Cali Dheere in 1000 qof laga dilo waxa uga xanuun badan in hal qof iska dhiibo sababta xogtooda haya. Nolosha ugu liidato oo ay dareemayaan oo ataan ku sheego ah in maanta bani aadamkii dadka ku noolaa shacabka ahay ee shalay dhihi jireen gaala in soo weerarayso in maanta wax baad ah oo zaka ahayn oo waxay tahay la aqoonin oo la dhihi karo jisiyo gaalatiin oo canshuur laga qaado qofka bani aadamka shakhsiyadiisa in beerta lagu canshuuro, xoolaha lagu canshuuro, ilmaha laga canshuuro, adigna lagu canshuuro, dhibaato heerkaas leeg ay bulshadu ku hayaan. ayagana dhib waxa ugu filan in shidaalku ka go'ay oo wadooyinka ay ka xirmeen aad dareemaysa in Xarar Dheere iyo Cali Dheere deegaan u dhaxeeya laga qabtay doomo shidaal u waday khawaarijta, in shidaal ay waayeen, nolosha caadiga asaasiga ay waayeen, nasiino ay waayeen. taas waxaa xoojinaya afayeenkii khawaarijta al-shabaab markuu hadlayay dowladda Soomaaliya fariin uma dirin ciidamada qalabka sida ayuu fariin u diray, culayska ay ku hayaan ciidamada ayuu fariinta ugu diray maane ninkii dowladda u shaqeeyo wasaarad ka shaqeeyo iyo nin ciidan dowladda shabaab kala ma jeclo. laakiin ciidanka dhibka gaarka u haysta waxay tahay bartilmaameed cirka ah iyo mid dhulka ah ay ku hayaan. xanuunkaas gaar dartiisa ay ka qeylisay Cali Dheere waana dareemi kartaa dhibka meesha ugu dambeeyay qofka markuu qayliyo guriga lagu noolyahay markii hooyada ay ka qayliso guriga lagu noolyahay maana culays badan ka jiro. meeshii madaxda barbagaan ku qaabilsan khawaarijta ay ka qaylinayaan caruurtuna waa ka daran yihiin. jab weyn ku tahay sababta in xogtaada haayo oo halka ku noosha iyo nolosha ku noosha og oo biri asoo nolol fiican ku nool asxaabtaada kale ay soo wacdhihi karo waryaada waxa shala ku jirna baadil mugdi ee iftiin oo soo baxay ka soo tagay nin dhihi karo inuu ka soo tagay dhibi ku tahay qofka ciidan ha dareemi karo garabkaaga inaa weyso oo ama ka dhinto ama ka dhaco ama ka tago xanuun gaar ay leedahay. khawaarijta al-shabaab marka dhib weyn ku tahay in 1000 qof laga dilo waxa uga xanuun badan in hal qof iska dhiibo sababta xogtooda haya. qofka dhintay aakhir uu aadaha anaga meel lagu wareysa arki meena laakiin cidiisa soo dhiibto noloshii ku nooleed iyo diin la'aantii ku soo nooleed iyo dhibka ummadda ku hayeen iyo dhibka ay isku hayeen oo sheega TV-da la hadlaa oo cadeena markuu cadeeyo bulshadii xoogaha Soomaaliyeed ku sirneed fikirkaas ayaa dareemi karta. aad iyo aad fariinta ugu weyn oo aan u diraa waxay tahay in Ilaahay ka cabsadaan in dhiigga islaamka ay inta hore u daadiyeen in Ilaah ugu simo oo Ilaahay ummadda Soomaaliyeed cafis weydiistaan, Ilaahayna dambi dhaaf weydiistaan. waxaan ugu faa'iideynaa waxa kamid ah in qof walba uu dambi galo ninkii nabiga adeerkiisa baarkiisa la baxay kii dambeeyay soo islaamay oo islaamku wax u taray. marka waxa la rabaa sidaas oo kale hadii shalay khaladaad ka dhacay in maanta ka timaado dowladda shacabkaaga la midowdo. waxa kale fariin in kugu filan Axmed Diiriye iyo Cali Dheere iyo Mahad Karata iyo Fuad Shangole ilmahooda dibadda ay jiraan ama dalka gudihiisa meelo nabad ay ka joogaan qora ma sitaan mar isqarxiyaan ayagina isma qarxiyaan. anigu marka ninka dhalinyarada la leeyahay isqarxi ama dagaal jihaad Ilaahay diintiisa ugu dhawaanaysa nabiga kaleey salaatu wasalaam asaga iyo awlaadiisa iyo ilma adeeradiisa iyo adeerkiisa dagaalka ay ku jireen inta islaamka ahayd markii laga reebay Abi Lahab dagaalka islaamka ku jireen. sidaas oo kale qofka islaam ah oo diin islaam difaacay waxa la rabaa in caruurtiisa dagaalka keeno asaga ilmo fariinta u faraa isqarxiyo markaas ayaan waxaan dhihi karnaa Allah ilaahay waxay wadaan xaq waa. laakiin waxaan leenahay al-shabaab diinta isaga qalaabtaan dhalinyarada diinta islaamka barta culimada Soomaaliyeed oo waxgaradka ah oo deegaanada xurta ah jooga diinta weydiiye si dhab ah oo lilaahi idinku wax u baarayaan wax walba in la sheegay qaadataan dhibaato kala kulmeysaan. marka waxaan leeyahay bulshadina la midooba culimada Soomaaliyeedna fataawaadka ay soo saarayaan in muxaadarooyinka ay dhageysataan ogaada waxaad ku sugantihiin halaag waa sababtoo hadii laga dhaadhiciyo adi isqarxi anna waa noolaana canugeygana Yurubta iyo jira amba Afrika amba Asia meel nabad u jooga adigana isbaabi hadii laga dhaadhiciyo nasiib darro waa. waxyaabo la yaab waxa kamid ah anan ku dheereenin nin oday ah oo qarax loo diyaariyay ayaa wuxuu leeyahay Ilaahiyow naga dhig taqaddam Ilaahiyow inqimaas naga dhig aamiin Ilaahiyow taqaddam naga dhig. taqaddam macnaheedu horumar waay. qof bini aadan si horumar u noqonay horumar wax la gaaro waa ma qof bini aadan noqon karto qof marka carabiyada iyo diinta islaamka heerkaas ka joogto. hadda kora islaam waxa laga sheegay nin sheekh ah wacdinayay marka wal casri oo fasiraya casirka baan ku dhaartay inal insaana la fi khusrin markii la sii marsiinay oo ila ladin inta la gaarinay tir waa baabaanay cid badbaadisa ma lahayn. marka dad diinta islaamka ka joogto wal casri inal insaana la fi khusrin oo ila ladin aamanu amilu saalihaat aan loo fasirin ay khawaarijtu badiyeen. waxa leenahay marka diinta islaamka barta dowladnimada iyo shacabkiina Soomaaliyeed dib ugu soo laabta fariinta ugu dambaysa u diray taas waa. waxaan leeyahay mar labaad ayaa boorka laga jafayaa waliba anaga 10 ka qaadan howlgalka hore
annagoon atmis iyo wax kala lamid aysan nala socan ayaa deegaano 1 kilomitr ku dhow ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanayo dadka deegaanka ah iyo ciidamada qalabkiisa qeybada kala duwan ayay xoreen baan ku sameeyeen deegaanada la xoreeyana nabad waaye xoo ahay dowladnimadii wasaaradii kala duwanaa gaaray barwaaqadii gaartay dhowr iyo 10 sano meel aan iskuul laga furin oo MCH laga furin ayaa maanta ka furan tahay marka waxaan leeyahay laga faa'iideeyo dowladnimada shacabka Soomaaliyeedna qayb maalkooda bixiyo iyo qayb naftooda bixiyo iyo qayb xogta cadawga soo dhiib ha noqdaano dalkan ayaan anaga nabad anfacayo haddii shabaab laga guuleysto oo dalkeen xor noo noqdana khayraadka dalkeen ku jiro biriga deeta ayaa dibadda taa waa helayna ilaa idinkiis faqriga aan ku jirno isku dhibaateynayna ka bixinayna ilaa idinkiis